She is the queen of Puntland. waa ka baxday. It's okay. Yes bay ka Gabar tahay. gayaankeyga aan geeyaa. Okay, ay aamus marka maarishada ku weydina haddii uu jaag guur ku soo bandhigto ma ka aqbalay xabiibti. Yes, of course. waxaa ku jira Mayana taa ku dhil. su-aashan gabdhaha ayay ku socotaa. nin haddaa guur usoo bandhigto oo guur weydiiso muddo ilaa intee la eg ayaad sugi kartaa? ma 5 daqiiqa, ma 10 daqiiqa, ma 25 daqiiqa? su-aashaas gabdhaha ayay ku socotaa oo gabdhaha ayaa ka jawaabi doona. qofkaa la wadaagayso nolosha, qofkaa hadda la socoto, mise this is how they say, okay? nimanka dumarka ee let's say hataa qofkan ay hadday jeclaadaan, qofkan ay la socdaan inay guursan doonaan mise inay guursan doonin, isla daqiiqadaas ay weydiistaan jaceylka. sheekada markii bilaabanaysa ayay ogyihiin waxan waa sheeko lasoo ogaaday. that same minute uu ku arkay ayuu ogaanayaa gabadhan miyay u qalmataa inay noqoto ciyaalkeyga hooyada. gabdhahani waxay u malayaan inay ka tahay qofka waqti sii mise lacag jaabkaa soo dhisto waqti sii muxuu ahaa isku soo diyaariya guurka. sababta guurka wax weyn waaye, laakiin ragga saas ma aho. ani intaa soo bartay aan buugta ka fiiriyey iyo ataa aan search gareeyay waxaan arkay ay dad badan isku raaceen ninka ragga daqiiqadaas uu kula hadlayo ayuu ogaanayaa inaad noloshiisa ku jiri doonto mise inaad tahay pastime le waqti dhaafis adi markii la sooman yahay tasbiixda iyo qur-aanka iyo waxaas yaa soomahoo la iskaga dejiya intaa gaajo badan dareemi lahayd. so adi as a pastime like geeday ku nasanayaan inta geedka kale mara ay gaari lahaayeen ayay inta u badan ay dumarku u yihiin. laga yaabaa inaad dhahdo faizo maxaa saa u dhahaysaa, maxaa keentay? waxaa waay markaan arkay qurux ku dhigay markii su-aasha la weydiiyey fiiri wallaahi isla markii muu ka jawaabay. waxay ku noqotay guri dhan, dhagaxyo dhan, in dunida dhan dir dhabarka loo saaray. waxay ku tusinaysaa inuu gabadha serious ka ahayn, inay ka tahay views, inay ka tahay saaxiibtinimo, inay ka tahay dadka fanska daawanayaan, taageerooyinka taageero inay jecel yihiin oy ku farxaan labadooda markay wax duuwaayaan. laakiin reality telefoon kamerada markii la damiyo inuu qurux ku dhigle bariiskiisa meelaha kasoo doonto. gabdhaha social media ku jiraan raggan aan la dhegeysin video okay dhib ma laho, adigana wax waa ka helaysaa, asagana wax wuu ka helaya. laakiin ani waxaan dhihi lahaa albaabaha kale way kaa xirin because way badan yihiin gabdho badan oo video niman isla dhigaan arkayso maalimo dambe m e w isguursanaan. wah adi waxaa isdhahaysaa wah gabadhii aaway intaas wax soo dhigaayeen, aaway gabadhii isla soo shaqeynayeen, aaway gabadhii meaning ninkan maxay ahayd le isdhaafis yani muxuu ahaa meel ku nasasho camal oo forever thing ma aho, temporary le wax yar. meeqaa garanayna niman badan oo social media ku jiraan oo gabdho la dhigi jireen waliba xagga tiktoka maalin ka dambe arka aroosyahooda warqadana loo soo wada diray. kow ma aho, labo ma aho, saddex ma aho. so gabdhaha social media ku jiraan
oo nimankan u dhawaanayaan oo nimankan wax la sameynayaan oo dadka dhahaan oh my god couple ani waxaan dhihi lahaa wallaahi intuu badan runka ma ah. maanta wallaahi qurux ku dhiigla wuu awoodaa inuu gabadha xaaskiis ka dhigto okay ayadana uma dhimanayso but dunidan maanta qof 5 sano jir xitaa wuu ogyahay inay asaga u dhimanayso laakiin ay sugayso inuu lugta dhaqaajiyo laakiin saaxiibka uu wax walba ka dhigay sheeko ciyaal sababta ninka wallaahi ragga ah gabar markuu u rabo daqiiqada kuma qaadanayso. If a man really wants you, he will move mountains, he will cut trees, he will stop ocean just to be with you. laakiin sheeka ciyaal maanta intee ka baxday isu bari ma hataa yani ha anaga wasjacnaan couple ana maxaa video la duwa kana la sameena waqtigaagii meeshaas ku dhamaana raggi badnaa oo laga yaabo maanta lugaha ku dhaqi lahaa inay isdhaafsinayso aleyso sug laga yaabo maanta inuu ku weydiisto sug bariya laga yaabo inuu ku weydiisto sug bari dambaa laga yaabo inuu ku weydiisto. ani ayada kali kama hadlayo ani gabdho badan oo social media ku jiraan oo waqtiga laga dhuminayo oo rag badan oo wallahi taa lugaha ka dhaqi lahaayeen oo guryaha u dhaqi lahaayeen ma dhaha albaabaha ka xiraayeen just because of ninkan ku jiro oo dadka dhan dhahayaan waa isku quruxsan tihiin waa isku nuuraysiin waa isku soo baxdiin hada dambana waa la ogyahay markii la duqoowo oo timahan madow ee cirro isku bedelaan cidiyaha dhumaadaan jirka u isla laabo qofka runkuu jeclaa oo qalbigaada jeclaa ma oho jismiga qofkaas ma agtaada taagnaanayo waxa kaleeto markii hore taa ka dhamaanaysaa dulqaadnimadii oo gabdhahan social media ku jiraan oo mar walba dhahayaan oo asigan sugayaa asan ka hor sugayaa been ma inta hal mar istaajiso waryaha ani ma irabtaa mise ma irabtid ma ka hadashaysiin wax weyn miya okay dadka dhan waa dhadeen waan isku nuurayna isku quruxsanaynaay adi ahaan may ka go'an tahay ee ani maanta waxaan af Soomaaliga laakiin gabar Soomaaliyeed waa gabar saan waa maxaa u diida maxaa hoos ma sheekada runta ah taa weydiiso qofkan walaalo ani ma irabtaa mise ragga kale oo albaabkayga soo qaracaan ayaa loo galaaba ma ho inaa waqtiga dhumiso ma ho inaa nimanka kale albaabka ka xirto labadan waa mid ee views ka cabsane maanta magac waa leedahay بس magac waa leedihiin qasamo oo u baahanta ninkan bariyo marka nolosha bilowdo taageeraha runta ah way ku taageerayaan kuwa feegane way baxayaan muhiimadan waxa waaye inaa hesho hooyi aa ku nasto raxmaan